nabad daawadayaal meel kasta oo aad caalamka naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkii aanu halkan ka soo gudbin jiray dabcan arrimaha bulshada waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa qaybta dhaqanka ayaanu gelaynaa gabdhaha oo inta badan waxa weeye aad ugu dulman dhanka guurka waxaad arkaysaa aabe saddex gabdhood haysta ama qaba isla mar ahaantaana hal meel wada dejiyey wuxuuna noo sheegaa marka inuu u cadaalad falo arrintaas ayaan jecel lahay inaan bal khabiirka cabdirasaaq maxamed aan dabcan weydiiyo su-aashaas bal ka waran bismi illaahi raxmaani raxiim waa sida aa sheegtay cadaalad ufilidda ma aragtay waa wax diinteenna wanaagsan ayna faraysa mar walba faritaankaasna meel adag ayaa la gaarsiiyey runtii in gabdhaha loo naxariisto oo wax walba oo ma aragtay wanaagooda ah iyo tarbiyadooda iyo ma aragtay hagaajintoodaba uu waalidka uu ma aragtay uu ka qayb qaato waayahay intayna haddaba waalidka gaadhin ninka iyo afadiisa waxaad arkaysaa nin saddex gabdhood guursaday oo hal meel ku wada haya oo hal guri markaasi waxa weeye ay u wada degan yihiin bismi illahi raxmaani raxiim waa sidaa sheegtay xaaji ninka marka uu xaas badan yahay waxyaabaha laga rabo runtii waxaa uga horeysa in uu kaafin karo xaasaskiisa iyo ma aragtay wixii markaa loo baahan yahay iyo cadaalad ufalidii haddii intaa la heli waayo ragga qaarkood waa la guursadaa iskaga guursada ayay u guursadaan inta badan taas oo ma aragtay dhibaato weyn u keenta xaasaskii la iska daba keenay dhibaatada ugu weyn runtii waxay ku dhacdaa bahweynta sida aan ognahay ama caruur ha looga tago ama ma aragtay ha looga tago ma aragtay duruufo kala jira ee ugu horeysa inay ilmo soo dhashay ama markaasi ayada oo runtii dhibaatooyin badan usoo adkaysatay waxaa waaye xiliyo waxaa iska jirtaa dhibaato la marayo qofka ugu horeeya ee xaaska ugu weyn ee bahweyntana dhibaato kula marayso marka aniga xaaska weyn ayay mar walba ma aragtay dhibaatada ugu weyn ay koraysaa sababtana waxaa waaye ayada ayaa ninkan xili adag oo dhibaataysnaa ama xiliyo badan oo rafaad badan uu jiray qofka la soo maray waa bahweynta marka baah labaada iyo baah saddexaada iyo midda afaraadba runtii culays ayay ku keenaan qofka ugu badan ee dhibaatada soo gaartana waa bahweynta marka ani ma arko in la isu cadaalad falayo halka qoys ma aragtay lagu midaysan yahay dhibkii iyo dheefta isla wadaagteen qofkaas unbaa ma aragtay wada heli kartaan farxad iyo ma aragtay cadaalad falid maadaama waqti adag la isla soo qaatay laakiin haddii aad dhahdo xaaskii waan badinaya badana ragga ama hooyooyinka Soomaaliyeed ma helaan cadaalad waa hagaag haddii ninku cadaalad falo oo hal meel uu wada dejiyo oo saddexda qol ay ku wada jiraan haddii saddex yihiin haddii laba yihiin labada qol ay ku wada jiraan haddii afar yihiinna saas oo kale miyayna markaasi waxa weye cadaaladii rasmiga ahayd una u samayn karin mar haddii meel ay wada joogaan habeen beta iska leh waxa weeye magaranaysaa ii sheegeen waajibkiisa gudanaya horta haddii la dhaho hal qoys guriga ha lagu wada hayo dhibaatooyin fara badan ayaa meesha ka imaan kara moraalkii waxaa ka baxaya meesha maaragtay dumarkii waxaa imaanaya tartan aad u fara badan oo maaragtay qoysaskii dhexdiisa ahaa waxaa ka baxaya meesha xiisihii dadka isu qabeen sababtoo dadku waa dad isla jooga is arkaya asiga naftirkiisa wuxuu rabaa ishiisa wax ka duwan qofka inuu arko ma qaba aniga runtii xaasaska in hal meel inta la isugu keeno cadaaladna ay ka helayaan waa culays kala oo maaragtay xagga niyad jab badan ku keenaysa sababtoo ah ninkii waxaa laga yaabaa in uu waxyaabo yar intuu iska soo helo oo si qaas ah qof ugu hadiyadayn karo asagoo markii horeba maaragtay qalbigiisa uu si qaas ah qof u jeclaan karo laakiin haddii meeshii la isu keeno niyad jab fara badan iyo xiisihii iyo tartan aad u fara badan oo keeni kara runtii inuu dagaal ama gacanka hadal uu dhaco ayaa meesha ku imaan kara marka in dadka guri la isugu wada keeno marna farxad lagama heli karo waa hagaag cabdirasaaq maxamed waa mahadsan tahay bal waxaynu eegi doonaa nimca cawsgurow oo ka mid ah gabdhaha iyagu sida aadka waxa weye uga faallooda dhanka arrimaha qoyska barnaamij soo saarana ka ah iyo fikirka ay ka qabto waraysi aan la yeeshay
aan wada daawano nimca dhinacayga fadhida nimcooy bal arrintaasi ka waran aynu hadda isha ku hayno xaaji aad ayaad u mahadsan tahay ugu horreyn qodobka aad ka dhawaajisay waa qodob lala yaabayo ugu horreyn qofka marka uu maqlo waa wax uu la yaabayo yacni wax soomaalidu marka hore ku cusbeen oo waayadan dambe aad isdhigi karto dhalinyaradu aad ayay ugu dheehanayaan midda kale ma lis oran karaa yacni haddii adigan kugu soo celiyo su-aashu waxyaabo badan ayaa ku qasbaya ama duruuf ayaa ku qasbaysa ama ku kallifaysa dumarku in ay xaaladaasi noocaasi ah ay galaan ayagoo ku salaynaya guur runtii dee waxaa la odhan karayaa ha iyo maya labada waa la odhan karaa sax waa midda koowaad haddii dad is-yaqaano ay ahaayeen oo markaasi shaksigaasi dee ninkaa la tijaabiyey oo hawshaa ka soo bixi karayo in saddex hal mar wada guursado way dhici kartaa laakiinse gabdhihii iyagu diyaar arrintaasi ma waxay ku tahay foolxumo mise waxay ku tahay ii sheeg wanaag anigu dhankaygu foolxumo ayay ku tahay waxaan oran lahaa dumarku hoos isku dhigayaan yacni qiimahoodii ayay meel oga dhacayaan gabar ayaa tahay dumar ayaa tahay haddii gabar walaashaa lagula guursado wax dhib way leedahay ma lahan laakiin adigoo dumar horta way hinaaso badan yihiin yacni way maseer badan yihiin dumarku marka xaalad zaid yacni waxay dhahaan nin ma qaybsamo ninku ma qaybsami karo yacni wuu sarrifmayaa ma xumo laakiin qodobkan hadda aad ka dhawaajisay wiilku haddii uu dhalinyaro uu yahayba iyo haddii uu ahaynbo mar uu guur uu u guda galay oo saddexdii habloodba hal meel ay ku wada nool yihiin hal guri ninkaasi horta ugu horreyn wuxuu kala kulmayaa madax wareer dhiikara ku dhacayaba ugu dambeyn ilan saddex qof ayagoo kala fog ayaabo ninku ay ku tahay dhibaato ayagoo hal meel ku wada nool xitaa si kasta iskaga dhaadhacsiiso in saddexdanii qof ama 40 qof inay wada heshiinayaan taasi caqligu ma keenayo way adagtay marka waxaad leedahay waa maalmo kooban ayay noqonaysaa inta xiisaha kale uu jiro ayay noqonaysaa haddii ilaahay awlaad uu siiyo oo saddexdooda waxa weeye awlaad ilaahay ka siiyo dee arrinta way isbedelaysaa oo halkii keligii waxa weeye la eegayey hadda awlaad baa timid so awlaadda laguma mashquulayo waan gartay awlaadda lagu mashquulayaa laakiin sooma si wanaagsan laakiin chancku intee lagu helayaa dadkan waa dad ayagu wada dhaqmaya oo isla nool haddana haddii aan kugu sii daro saddexdan dumar ee hal meel aad keentay oo hal guri aad ku wada qabto adiguna aad sheegayso inay heshiiyeen haween iyagu iskala baangeynayaan ama ay abirahde meel iska soo bixinayaan oo ninkii midba u hooyanaysa laakiin isla gurigii ah ayaa haddana ugu dambeyn waxaa dhici karta inaysan heshiin waxay ku heshiinayaan kuu sheegaya ka waran saddexdan qof isku meel ay joogaan wax kasta ay ka warqabaan midii jalaato loo keeno midii dooro loo keeno way iska warqabaan tii bariis loo keeno yacni waa dad iswada og oo iska warhaayo marka maseerka koowaad meeshaasu imaanaya laakiin haddii la kala fogeyn lahaa ninka dhibaato ogama imaateen beri waxaa la dhahayaa ma cadaalad falaysid midda kale jirta waxaa weeyaan yacni ilaahay awoodihiisu way badan yihiin dad ayuu owlaad siiyaa wiilal iyo gabdho iskugu dara dadna hadduu rabo ma siinayo dad muddo dheer kadib la siinayaa yacni haddii naagtan ay yeelato yacni ilma ama owlaad ay hesho tan kalena ay ka dambeyso ama tii kale iyaduba ay awoodeedu ay noqon waysa inay uur ay qaado ninkii hal dhinacu u leexanaya haddii runta aan isku sheegno nin haddaad owlaad u haynin xitaa soomaalidu waxay dhahayaan haddee naagtan waxba kuu dhalayn iska fur marka waa qodob aad u weyn oo dumarku ay fiirinayaan haddii ninkan wax loo dhalo meeshasi ayuu u weecanaya sax waana arrin sax oo dhaca marka tii waxba dhalaynid waxaa laleeya ma dhasho waaya yacni cadaalad darrada meeshaas ka imaanaysa kow saddexdii qof oo marka hore aad soo gursatay oo aad lahayd way heshiinayaan dagaal koob ugu bilaabayaan laakiinse soo lama odhan karo nimcoy haddii saddexda gabdhood ay raalli ku yihiin saddexdaba ay dhalinyaro yihiin oo waxaa la yidhi horta gabar ma aqaano soomaalidu waxay tahaa naag nin qaawiye kama quusato sax maamaha soomaaliyeed waana berigii hore
ما قناه حوي وكل دود بقى كتاع مرمى waan gartay مركا قبل مركا نكا ugu horeeya kama maarmaysa yalla hadii ma ilaaba salay haye marka hadii saddexdooda yihiin magaasa ninkii ugu horeeyay oo wax kale inaan aqoonin experience hore ayna jirin waan gartay soo kuma qasban in wax weeye ay jacaylkii hal meel ka wada wadaan oo ay isku heshiyeen way dhici kartaa laakiin ruuxii saddex dumar hal meel isugu keenay hoog baa u yaala oo horeen laakiin dinle nin iga dheh run midda xigta ayaa waxa ay tahay qodobkii aan kugu dari rabay ayaa waxa uu ahaa yacni saddexdan qof oo hal meel aad iskugu wada keentay qodobkii koowaad oo aan ka dhawaajinayaan jeclaan lahaa inaan ku noqdo yacni lama joogo era ama waqti aan niraahno dadka inta badan waxay ku andacoonayaan yacni raggii way yaraadeen dumarka badan marka ayagoo taas qiil ka dhiganayaan ay qiimahoodii hoos u dhigayaan anigu waxaan leeyahay hablaha arrinkaasi arrin wanaagsan ma ahan hadduu ninka ku guursanayo 3-4 ilaah u baneeyay laakiin hal guri ku wada noolaada adigoo marka hore aqbashay haddana inay 3 lagula guursado ama 4 lagula guursado weli qiimaha dignity-gaada meeshuu yaalaa maalina hoos ku dhigto oo hal qol hal meel laga wada cabi wuxuu leeyahay yacni kartidaas uu leeyahay wuxuu leeyahay dhaqaalaha 4 naag ama 3 naag uu ku guursanay maxaa kurka u gelinaya haddii uu haysanin inuu ani kaliya qol ii kireeyo abaayadan kale lila qabo ee uu guri u kireeyo wuu awoodi karaa muxuu u damcay hadduu awoodi karin hadduu cadaalad fali karin muxuu u damcayaa yacni dumarkan oo idin marka anigu waxaan aaminsanahay la tahay haddii aad awoodid oo damac uu kaa galo 4 naag ama 3 naag inaad guursatid waa inaad dhaqaalaha haysatid oo nin ragaad noqotid kartidaada waad noqotisto sax ma ahan keliya ظروفta ii geysay haddii ظروف ku haysato 3 naag hal meel isugu keenin walaal way ugu dambeysay ma taageersan tahay in ninku wax weey in lagula guursado anigu ma taageersani tii rabbi alla okay tii rabbi waa gaar waa tahay nimco aad baad maasantay adiga mudan xaaji waa hagaag dawa maqlaysaa nimco inaguna waynu u joognaa yaa awood u leh oo markaas waxa weeye 2 guursan karaya 3 guursan karaya 4 guursan karaya barnaamijku waynu furayay waa tahay cabdirasaaqow nimco waad maqlaysay sida markaasi ay ugu horrimtay waxay tidhi ma raba ma fiicna bay leedahay adiga kugu taageertay waa qofka bini aadamka ah wuxuu dareemaya runtii waxyaabaha gudaha ka jira ee maaragtay dhibaatada u keeni karta cid walba way og tahay in dad haddii meel isugu keeno ay tartan samaynayaan oo ficil uu meesha ka imaanayo oo maaragtay siriixriix uu jira marka qoyska mar walba waxaa laga ilaaliyaa buuqa waxyaabaha buuqa sahli kara inuu imaadana keeni kara waxay kow ka tahay in dadkii hal meel isugu keeno marka maxaa moodaa nimca runtii inaan fikirka aad isaga dhownahay waa hagaag waan filayaa intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka arrimaha qoyska aanu halkan idinka soo gudbinaynay cabdirasaaq maxamed ayaana ila falaqeynayay sidaa ka tagnaa cabdirasaaq waxaan leenahay dhegeystayaashana runtii inta aan follow noo ahayn ee maaragtay subscribe-ka noo saarin inay subscribe saaraan like-ta iyo shartana ay ku dadaalaan runtii si aan u gaarno in barnaamijyadeena ay gaaraan maaragtay meelo dhaadheer ay u gaaraan marka subscribe-kiina muhiim ayuu noo yahay waa tahay aad baad cabdirasaaq u mahadsan tahay idinkuna waa mahadsantihiin sidaas iyo nabad gelyo okay